بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashirkeenii saddexaad ee ku saabsanaa barashada luqadda Swedish-ka waxaan maanta cashirkan saddexaad kusoo qaadan doonaa wax la yiraahdo personliga pronomen. Personliga pronomen waxa weeyaan waa waxa Soomaaliga loo yaqaano magac u yeelka. Waxa weeyaan waa erayo la isticmaalo oo la isticmaalo booska magaca, yani intii la oran lahaa Axmed wuu tegay, Axmed wuu baxay, Axmed gurigiisuu tegay. Waxaa la isticmaalaya Axmed wuu tegay, isagu wuu baxay, isagu gurigiisa ayuu ayuu tegay. Marka magac u yeelkaas ayaan maanta baran doonaa ee luqadda Swedish-ka ku jira. Kuwan hadda arkaysaan erayadan meesha aad ku arkaysaan waxa weeyaan waa magac u yeelada kala duwan ee ku jira luqadda Swedish-ka oo waxa weeyaan inta badan la isticmaalo ugu isticmaalka badan. Waxaan halkan waxaan ka bilaabanaa jag oo ah aniga, du oo ah adiga, han oo ah isaga, hon oo ah iyada, vi annaga, ni idinka, iyo dom iyaga. Jag waa aniga nidhi weeyaan. Ereygan g-ga maaragtay meeshan luqadda Swedish-ka ya baa loogu dhawaaqaa, sidaa daraaddeed jog ma noqonayo, waa yog weeyaan. Halkan waa du weeyaan, qofka toos markaad ula hadlaysid adiga weeyaan. Han isaga, hun iyada. Han iyo han baa marka la isku khaldamaa, inta badan dadku way isku khaldamaanoo han iyo hun way isku eg yihiinoo markaan waxaan idhahdaa han waa farxaan, hunna waa ruun weeyaan. Han farxaan oo kale uu egyahay, waa magac nin aan oo ku dhexda ugu jirta. Hunna waxa weeyaan ruun baan leeyahay, dhexda u baa ugu jirta, waana gabadha, yani waa waxa weeyaan waa magac gabadh oo kale wax loo isticmaalo. V waxa weeyaan waa group weeyaan oo annaga ah. Ni waxa weeyaan dad aad la hadlaysid weeyaan oo toosaad markaa ula hadlaysid, waxa oo markaa idinka aad ku leedahay, iyo dom oo markaa dad idinka maqan oo group ah oo markaa iyaga aad leedihiin. Halkan markaa tusaalooyin kala duwan baan soo qaadanaynaa oo ku saabsan kan oo kale ah. Matalan hadda ereyga jag la yiraahdo ee aniga ah, jag är sjuk. S iyo G gu markay israacaan bay noqonaysaa. Ereyga carabiga xarafka carabiga kha oo kale ah ayay noqonaysaa, ama Soomaaliga laftiisa khadaan leenahay. Jag är sjuk. Anigu waan, är waa fal weeyaan, halkan waan weeyaan, sjuk xanuunsanaya. Jag är sjuk. Jag är hemma. Anigu waxaan joogaa guriga, hemma guriga. Jag är hungrig. Jag anigu är waan hungrig, gaajaysanahay ama gaaja haysa. So halkan waxaan arkaynaa jag sida loo isticmaalo ee kala duwan. Jag är sjuk, waan xanuunsanahay. Jag är hemma, gurigaan joogaa. Jag är hungrig. Sidaas oo kale waxa weeyaan waxaan arkaynaa magac u yeelka du oo kale saan u isticmaali karno. Du är sjuk, du är hemma, du är hungrig. Adigu waad xanuunsanaysaa, adigu gurigaad joogtaa, adigu waxa weeyaan waad gaajaysan tahay. Du baad qofkii ku leedahay markaad la hadlaysid. Sidaas oo kale markaa waxa weeyaan han iyo hun aan u isticmaalayno. Waxa weeyaan magac u yeelku wuxuu yimaadaa jumladda waxa weeyaan meesha ugu horeysu ka galaa. Waxa weeyaan wuxuu ka horeeyaa falkii buu ka horeeyaa halkan. Waxa weeyaan marka meesha ugu horeysa jumladda ama maxaa la yiraahdaa hadalka ayuu ka galaa. Han isagu aar wuxuu yahay sjuk, wuu xanuunsan yahay. Hun iyadu aar waxa weeyaan waxay tahay sjuk, way xanuunsan tahay. Han iyo hun saasaa kulli loo isticmaala. Marka v iyo dom iyo ni kuwa kalena sidaas ayaa loo isticmaalaa. Halkan waxaan kusoo qaadanaynaa jumlado kala duwan oo marka ay ku jiraan jag iyo du. Kulligood waxay ku dhamaanaysaa waa isku mid weeyaan. Hemma weeyaan waa guriga, waxay tilmaamaysaa qof ama dad kala duwan oo guriga jooga oo markaa waxa weeyaan halkan jag är hemma, gurigaan joogaa anigu. Du är hemma, adigu guriga ayaa joogtaa. Han är hemma, isagu guriga ayuu joogaa. Hon är hemma, iyadu guriga ayay joogtaa. Vi är hemma, anagu gurigaan joognaa. Ni är hemma, idinku gurigaa joogtaa. Dom är hemma. Marka halkan waxaad arkaysaa
arrin ka duwan matalan Soomaaliga iyo luqadda Englishka ah oo falku isma bedelayo markay tirada dadku isbedelaan. Matalan hadda yoog r baan u isticmaalnay, v oo annaga ahna waxa weeyaan waxaan u isticmaalnay r baan u isticmaalnay. waxa weeyaan marka isma bedelayo mar walba, ama qof ha laga sheekeeyo ama dad badan ha laga sheekeeyo ama qof toos loola hadlaya ha noqdo ama qof laga sheekeynaya ha noqdo, mar walba falka loo isticmaalayo waxa weeyaan waa r weeyaan, oo marka aanu isticmaalayno ereyadii kala duwan. Ni är hemma waxa weeyaan idinku guriga joogtaan, dom är hemma iyagu guriga ayay joogaan. halkan waxaan arkaynaa marmar loo isticmaalayo jumlado kala duwan baan gelinayaa oo wada hadal ah. halkan waxaan arkay vad heter du. halkan waxaan arkaynaa magacyaalkii meesha ugu dambaysu gaday, jumladii gadaal buu ka galay. halkan waxaan fahmaynaa jumladu inay markaa su'aal tahay. marka vad heter du, xaaladda su'aalka markaa gadaal buu gelayaa, booskiisii hore ee meesha ugu horreysay jumladda uu kaga jiray wuu iska bedelayaa, vad heter du buu noqonayaa. marka halkan magacaagu waa maxay? jag heter Ali, aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cali. Han kommer from Somalia, isagu wuxuu ka yimi Soomaaliya. Hon kommer from Sverige, iyadu waxay ka timi Sweden, Sverige, Sweden. Vi bor i Stockholm, annagu waxaan deganahay waxaan deganahay i waxa weeyaan in weeyaan, ama fiidii carabiga ahayd waxa weeyaan meesha aad degantahay gudaheeda, Stockholm magaalada caasimadda ahayd. Ni idinku bor i Uppsala, idinku waxaad degan tihiin magaalada Uppsala ee ku taalla Sweden. Dom iyagu bor i Norge, iyagu waxay degan yihiin Norge oo Norway ah, dalka Norway ah. marka halkan waxaan arkaynaa siyaabaha kala duwan ee noo isticmaalayno magacyaalka yoog iyo han iyo hun iyo v iyo ni iyo dom, iyo inay inta badan magacyaalku meesha hore galaan marka laga reebo marka ay su'aal aan weydiinayno oo magacyaalku markaa meesha ugu dambaysa gadaal uu gelaya jumlada. hal mar haddaan markaa ku celino magacyaaladii waxa weeyaan magacyaal waxa weeyaan yoog weeyaan oo aniga ahaa, du oo adiga ahaa, han oo isaga ahaa, hun oo iyada ahayd, v oo annaga ahayd, ni oo idinka ahayd, iyo dom oo iyaga ahayd. han iyo hun baa ugu waxyar wareer badan, laakiin han waxaan idhi waa farxaan, hunna waxa weeyaan waa run weeyaan, v iyo nina waxa weeyaan waa labo iyagu isku eeg dhawaaq ahaan, waxa weeyaan v oo annaga ah iyo ni oo markaa iyaga. casharkeenni maanta intaas ayuu ku egyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.